su-aasha aan isweydiinaynaa waxay tahay war waddankii Soomaaliya maxaan ku kordhin karnaa ma ka hadlaayo macnaha qurbajooga qoraxjoog hadda waxaan ka hadlaynaa shaqada rasmiga ah hadda Yuusuf ka dhawaajiyey oo ah in waddankii wax laga qabto dib loo dhiso dib u dhiskii dalka maxaan uga qayb qaadan karnaa su-aashaas waxaana weydiiyey gabar yar oo jirta 11 jir la yiraahdo Ifraax Cabdulaahi gabadhaas yarta ay la dhageystay su-aasheeda ka bacdina doodeennii halkaas ayaan ka wadaynaa magacaygu waa Ifraax Cabdulaahi waxaan ku dhashay waddankan Finland Soomaaliya wali ma arag laakiin waxaan ogahay inaan ahay Soomaali laakiin anigu caruur ayaan ahay ma garanay sababta aan u arki waay Soomaaliya caruur ayaan ahay ma garanay sababta caruur igu daa qaarkood loo dilaayo qaarkood badda ugu dhimanaya qaarkoodna baahi ugu dhimanayaan caruur ayaan ahay ma garanay sababta dad isku dhaqan ah isku diin ah isku af ah isku dad ah ay isku dilayaan caruur ayaan ahay ma garanay sababta aan aniga intaan halka ku dhalatayba ugu noqon laanahay waddankeeni caruur ayaan ahay ma garanay dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalkaygaba cid mas'uul ka noqon doonta waxaan jeclahay inaan arko Soomaaliya inaan arko Xamar inaan arko Hargeysa inaan arko Kismaayo inaan arko Boosaaso inaan arko Gaalkacyo inaan arko Hiiraan Soomaaliya iscafiya way mustaqbalkayga ayaa idinku xiran waad mahadsantihiin ka warrama Ifraax fikirkeeda su-aasha ah yaa mas'uul ka ah mustaqbalkayga qofka bini'aadanka ilmuhu markuu dhasho ilaa uu gurguurto socod ma gaadho Soomaaliya ama Soomaaliya waxay isku samaysay waynu ognahay adduunkana dadku marka ay civil war meel walba ka dhaca iyo ismari waa iyo isfahan waa ummadi iskama kacdo oo ma socoto oo wax ma wada qabsato ilaa ay horta intay wada fadhiistaan wada hadlaan oo cafis sameeyaan reconciliation wax la yiraahdo ballaaran inagu waxaan doonaynaa inaynu ka boodno reconciliationkii ummadda Soomaaliyeed waad ogtiin siday u kala qaybsan tahay iyo siday u kala firirsan tahay sanadba sanadka ka dambeeya in sii dhaafay la sii kala maqan yahayna waa sida aynu u sii kala maqanahay waa sii kala durkayna waa sii kala fogaanayna Soomaalida waxay wali ku kala tagsan tahay waa 100 sano ka hor oday ay ku midoobeen iyagoo hadda nool oo ka ilbaxsan ay midoobi la yihiin marka ilaa la taagan yahay 500 sano ka hor ayaa aniga iyo mataan awoowayaasheen isla dhasho isku bahbay sii ahaayeen maxaan ku yiraahdaa wali awowgiis iyo awowgayna geelay kala dhici jireen oo colaada dhex taalay macnaha midowgaas 100 sano ka hor la sameeyay ma aha kii Ilaahay sheegayo isku aqoonsadada aha laakiin isbahaysigan qabyaalada marka la dumiyo oo beelaha Soomaaliyeed laga tago qaranka Soomaaliyeed la noqdo markaas aan aaminsan qabyaalada waa sheeko runtii aad iyo aad u qiimo oo macnaha oo interest ah oo dadka marka la weydiinayo qabyaalada qof kasta oo Soomaaliya aan la hadalno meel kasta ama TV aan ku wareysano ama seminar aan isugu nimaad qof walba waa ridiya haddana aadan ku soo socdaay qabyaalada waxa lagu dooranayaa baarlamaankii waxa lagu dooranayaa madaxdii waxa lagu dooranayaa waxba lagu kala qaadanayaa functioning wali waa socdaa hawshii waa socotaa meel kasta waa lagu ridiyaa marka maxay tahay sababta maxaa loo ridinayaa hadiiba lagu dhaqmayo horta qabyaalada marka la dhahayo qabyaalada qof kasta oo Soomaaliya wuxuu ku dhahayaa qabyaaladu waa diloot waa inaan ka tagno sidaas sheegtay oo ah qabyaaladan waana dhibtay waa inaan farsamo keenaa waa inaan ka baxnaa laakiin soo horta intaynan halka gaarin horta waa inaan anigu qirtaa shaqsiyan inaan dhibaato ay haysato oo dhibaatada ay haysato waa inaan kaliya iska saari kara hadda anigu cidna kama qariyo ma been kama sheego anigu markaan Ingiriiska waan cabaysnaa aad iyo aad baan u cabaysnaa oo ahaa ninka ugu laandheeraysan Soomaaliya anigu ahaa anoo tabtasan Ingiriiska markaan tagana waxa la iigay intaas oo kala nooca kii ugu horeeyo Soomaaligan iskuulka isku arnay wuxuu ahaa mid ay reeraha igu dhihi jireen waa laangaab
iyo weligeen baynu geela ka dhaci jirnay sidaynu geli jirnay dusha kaga tuman jirnay kii markaanu isaga fadhisan waxaan dhahay war maree kooxdii baa maanta isaga fadhinaa ila tuuladii aanu joogno iskumaanaan heli jirin jaanis aanu isku ag fadhiisanay waanu ninkan isku baranay haddana caddaan baa yimi haddana waxaa yimi kooxa kale haddana waxaa yimi intaasoo nooc baa jiray nin kasta tiisii ayaa u cabaysan oo ah tii ahayd reerkii odaygan hebel la dhaho oo intaasoo qarni ka hor jiray ayaa ku dhalay waa tahay waana normalize garaynaa dhibaatadan haystaan idiin sheegaya hadda innaga Soomaali markaan leenahay qabyaaladda inaan iska joojino weeye haddana laakiin aysan rajiisgaraynayn madaxayna aysan gelin weli inaynu bahashan saarno oo farsamo kale u keeno wiilkii raabaa soo dacwooda ku dhahay adeerow wiilkaaga iga celi waa wiilkaaga igala hadal wuxuu dhahay adeer muxuu kugu sameeyaa oo maxaan kaaga celiya markaasuu dhahay maalin kasta hadal aan raalli ka ahayn buu igu dhahaa markaasuu dhahay waa maxay hadalkaan aan raalli ka ahayn adeerow kugu dhaho maalin kasta wuxuu dhahay maalin kasta wuxuu dhahay kiiraa midgaankaaba maalin kasta ugu dhaha marka arrintaas aad bay ii dhibtay asaaga iga reebtay adeero wiilkaaga igala hadlo iga dacwo odaygii isagoo markaa isla wanaag fal ayuu soo kacay ina keen adeer aaway kii xunka hayaan dhalay kii yaraa buu soo qabtay war yaa kaalay wiilkan yaroo midgaanka maxaad maalin kasta midgaan yaho ugu dhehdaa conceptiga Soomaalidan ku sheegaya ninkaas waxa laga yaabaa intentionkiisu inuu wanaagsan yahay oo leeyahay inuu qabyaaladdan aan iska saarno laakiin isagu isma oga isaga ku dhaqmaya isagii baa dhex taagan oo ku dhaqmaya markaas waa inaan qiranaa inuu bahashan cudurkan jiro dhibaato jirto hadda ummadda Soomaaliyeed anigu shaqsiyan aaminsanahay runtii waxaan qabaa Soomaalidu waxay yihiin ummadaha aan anigu arkay kuwa ugu cunsurisan ka mid yihiin waana qiranaa kuwa ugu cunsurisan inay yihiin waa nin Soomaaliyeed oo weligii aan wada deganayn oo geyigay ugula dhashay oo Soomaali ah ayaanan maanta ka guursan ilaa hadda waxaan leenahay isma geyno ajib maaha marka lagu dhaho waxa weeye clean maaha ama nadiif maaha yaa wax nadiifiya ma amuurti ilaahay bad hadda iska soo horjeedaa maalinta dhan buu intuu istaago ayuu intuu salaada tago wuxuu tukadaa shan salaadood buu tukadaa maalintii midiiba inta ragcadood ku jirta waa taqaanaa inta ragcad kasta wuxuu akhriyaa alxamdulillah alxamdu baa akhriyaa suurada alxamdu ما هذا رف قرآن كأخريا مركو دميني الحمد لله وحده إهدنا الصراط المستقيم سرا مركو يريد كصوب حنا هالك بوقع بيستاب